doonyahani ay ciidamada ilaalada badda Galmudug soo qabteen ayaa waxa ay ahaayeen kuwa nooca kalluumaysiga ah waxaana laga leeyahay dalka Yemen iyadoo ay la socdeen shaqaale intooda badan u dhashay isla dalkaasi Yemen ciidamada ilaalada badda ee dawlad goboleedka Galmudug ayaa doonyahani ka soo qabtay biyo xeebeedka deegaanada dawlad goboleedka Galmudug sida uu sheegayo Cabdirashiid Maxamed Axmed Cimri oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada ilaalada badda ee dawlad goboleedka Galmudug sharci darrada tuugada ah oo baddeena kalluumaysanayay waan ku faraxsanahay sida xukunka ugu riday annaguna waajib wuxuu naga saaran yahay amaankooda in aan ilaalino inta xukunkaas laga bixinayo wixii sharci darro ku soo xadgudba oo mar dambe badda Galmudug ku soo xadgudbana sidaas oo kale iyo waliba si ka sii daran oo aan rabno hadii ilaahay noo hadii ay joogsan waayaan sharci darradana sidaas ay ka deen waayaan in aan doonida dhan marka dambe aan la wareegno hadda kalluunka kala wareegnay doonida dhan maamulka ayaa la wareegaya waxa laga dhigayaa gaadiidka dawladda laga dhigayaa Rashid Cali oo ahaa kabtanka doonidii ugu horeysay ee ay ciidamadu qabtaan ayaa sharaxaya qaabka ay ciidamada ilaaladu u soo qabteen iyo halka laga qabtay xilligaasi من راس كري إلى قرعة. أيوة. اشتغل طريقة شرعية. يعطي ورقة للمرة. بس رخصة معقولة. 2000 2500. داخل في البدرة. في الصومال. أيوة يحكم. قرعة إلى راس كري. هذا ما حد يكلم أبدا. dhanka kale maxkamadda ciidamada degmada Hobyo ee maamulka Galmudug ayaa xukun ku riday mid kamid ah doonyahaasi waxaana qaabka maxkamadayntu ay u dhacday ku dhawaaqaya Liibaan Tahliil oo ah xeer ilaaliyaha maxkamadda degmada Hobyo maxkamadda ciidamada degmada Hobyo ee Galmudug waxay ku fadhiisatay dacwad loo haystay 39 badbaadiyaal ah oo u dhashay dalka Yemen iyo doonidii loo haystay kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa waxay ku xukuntay sida kalluunka ay wado doonta in laga dejiyo wadmaaxayaasha u dhashay dalka Yemen in lagu xukumay lacag dhan 1000 qofkii 3 doonida in lagu xukumay lacag dhan galkan ay ciidamada ilaalada Galmudug ka wadaan deegaanada xeebeedyada dawlad goboleedka Galmudug isla markaasna ay kaga hortagayaan kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa waxa soo dhaweeyay qaar kamid ah kalluumaysatada ka shaqeysata xeebaha deegaanada dawlad goboleedka Galmudug waxay dib sayd ay nagu hayaan mararka qaarkood waxaan aragnaa anagoo kalluumaysi u socono inaan macnaan ka soo cararno kalluunkii aan gaadanayno oo aan ugu soo cararno ayay ahayd markii uu gudoomiyaha degmada Hobyo ku dhawaaqay inay ka hortagayaan dhammaan kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha deegaanada dawlad goboleedka Galmudug talaabadaasina waxay horseeday inay ciidamada ilaalada baddu laba jibaaraan hawlgalkooda Cali Maalin telefishinka Home Cable magaalada Gaalkacyo